jeel qabay jidkan guusha ayimi dadkii layga jeexiyo jooxadii qalbeebay jidku iigu yaalay muddo waxaanu jeel qabay jidkan guusha ayimi jananadii maqnaa iyo kuwa ciida jooge ee hooyo sii jiray yu jacayl mideeyo daxoradii iftiintaye jananadii maqnaa iyo kuwa ciida jooge ee hooyo sii jiray yu jacayl mideeyo daxoradii iftiintaye jooxadii maqnaydiyo layo booliskii jiray isku soo jibaadaye ogaadeniyaa jira jooxadii maqnaydiyo layo booliskii jiray isku soo jibaadaye ogaadeniyaa jira jira jooxa jira jooxa jira jirkeena gadi jiray ee halgamagi soo jiray jeegaga ku iibsaday yana jaanis naga helin kuwa inala jaarkeen jirkeena gadi jiray ee halgamagi soo jiray gacalada u jilib xidhay yana jaanis naga helin daxaloo jidi in jabay oo jarmaada loo maray jirbisii abeesiyo halaq loogu joogsaday jacaylkiyo midnimaade daxaloo jidi in jabay oo jarmaada loo maray jirbisii abeesiyo halaq loogu joogsaday jacaylkiyo midnimaade jooxadii maqnaydiyo layo booliskii jiray isku soo jibaadaye ogaadeniyaa jira jooxadii maqnaydiyo layo booliskii jiray isku soo jibaadaye ogaadeniyaa
jira شحذي مقنايديو ليو بوليسكي جيري اسكو سو جيباداي ogaadeniya jira ويني ورا تشي وقردي ويا aqoonyahan wiilashi isugu wada yimid dhammaan midnimo lagu wada tashaday midnimo lagu wada tashaday shirweyni wada tashi waqradii waya aqoonyahan wiilashi isugu wada yimid dhammaan midnimo lagu wada tashaday midnimo lagu wada tashaday waxa aan xusuustaa qalbigana walaac ku shiday waranku cadaawo kula weyraxay shacabka waxa aan xusuustaa qalbigana walaac ku shiday waranku cadaawo kula weyraxay shacabka wadaguba abadiyo mutida waxaan uga socdaa wadamada horumariyo kuwa washadaha iska leh halkaba waxay ku galeen waa midnimo wadashada dhulkiino uguntada wax soo saar wadaguba abadiyo mutida waxaan uga socdaa wadamada horumariyo kuwa washadaha iska leh halkaba waxay ku galeen waa midnimo wadashada dhulkiino uguntada wax soo saar wanaagaynu hiigsane wadada fiican maro ay wadagaatihi tacliinta waxbarashada dhalintay weheshado wanaagaynu hiigsane wadada fiican maro ay wadagaatihi wadaniga halgamayo waraabina soo maray adaaniga weecshayo kaa laga wada bogsaday wadaniga halgamayo waraabina soo maray
u tara shacabka weelaha guubaabadiyo muftida waxaan uga socdaa wadamada horumariyo kuwa warshadaha iska leh halkaba waxay ku galeen waa midnimo waxgashada dhulkiino uguntada wax soo saar weelaha guubaabadiyo muftida waxaan uga socdaa wadamada horumariyo kuwa warshadaha iska leh halkaba waxay ku galeen waa midnimo waxgashada dhulkiino uguntada wax soo saar weelaha guubaabadiyo muftida waxaan uga socdaa wadamada horumariyo kuwa warshadaha iska leh halkaba waxay ku galeen dhammaan wariyaasha muxuu ahaa waan salaamayaa aad baad umahadsantihiin maalinkaad timaadeen waxaan joogay Kenya safar ilaa aduu usbuuc ah yaan ku imid safarkaas ujeedada u weyn waxay ahayd shir baa ka jira caalami ah oo laga hadlayo nabadda geeska Afrika iyo gobolada dhexe ee Afrika waxaa la qiimeynayay heshiisyadii la gaaray iyo wixii ka hor yimid iyo faa'iidadii ka dhalatay marka koonfurta Sudan, Congo, muxuu ahaa Central Africa, Chad and South Sudan and Somali regional state in Ethiopia ama Ogaden and sidoo kale even Kenya within yani community violence sida loo xaliyay marka experienceski South East Asia ka dhacay Latin America North Europe waxaa soo dilbaa ya laga faaloonayay maxaa ka hor yimid maxaa laga faa'iiday marka qaybleeda waxaan ka qaadanay waxyaabihii wada heshiiskii aan galnay aan kala kulannay faa'iido iyo waxyaabihii xanibaadyada aan la kulannay runtii khibrad badan baa noo kordhay afkaar badanna waan isweydaarsanay shirkaa markuu dhammaaday maadaama ay tahay Nairobi center weyn oo geeska Africa siyaasiyiintiisu isugu yimaadaan kuwa ka imaanaya Soomaaliya kuwa ka imaanaya muxuu ahaa Djibouti, Eritrea, Tanzania, Uganda meelo badan dowlad deegaanada gobolada Soomaaliya dowladaha Soomaaliya waxaasoo idil baa meeshan siyaasiyiin badan markii joogtay marka waa siyaasiyiin badan baa kala kulannay waxaan la kulannay Jubbaland madaxweyneeda waxaan la kulannay xildhibaano ka socday koonfur galbeed Baydhabo iyo muxuu ahaa dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka ku jiray qaar wasiir hore aan jiray waxaan la kulannay xildhibaano ka socday Galmudug waxaan la kulannay xildhibaano ka socday Puntland waxaan la kulannay mas'uuliyiin ka socday Somaliland dhammaantood waxaan ka wada hadlaynay waxay ahayd sidii khilaafaadka ummadda Soomaaliyeed loo nabadgelyo looga gaari lahaa sidii afgarasho loo abuuri lahaa sidii isbeddelka geeska Afrika dadka Soomaalidu ay u noqon lahayd mid ay ka faa'iidaan oo ay u noqotay inay victim u noqdaan sidoo kale waxay naga wareysteen xaaladda Ethiopia ka jirta nabadda ka dhalatay deegaankan ka nimid siyaasadda Ethiopia maxaa ka socda isbeddelkaas guud ahaan waxaan isla garanay in positive ay tahay heshiiskii aan gaarnay oo geeska Afrika ay furo u tahay nabadda ka dhalatay dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia ku hoos jira ama Ogaden loo yaqaano ama Somali state loo yaqaano marka ayaguna ay dhiirigelinayaan nabadda inay sii socoto waxay kaloo aan ka hadalnay siyaasadda isbeddelka Ethiopia ka socda khasaare iyo faa'iido maxaa ka iman kara waxaan isla garanay guud ahaan Ethiopia oo nabad ka dhalato dimuqraadi noqota dadka Soomaalida inay faa'iido ugu jirto marka in la dhiirigeliyo taas ayadana taas aan ka garan waxaan kaloo ka wada hadalnay fursadda ka dhalan karta nabadda geeska Afrika abuuranta dhaqaalaha iyo horumarka laga gaari karo intaas oo idil baan ka hadalnay sidoo kale waxaa shir weyn ii qabtay soo dhaweeyay muxuu ahaa community-ga Soomaalida ay ku nool muxuu ahaa Kenya khaasatan Nairobi oo ay qayb libaax ka yihiin qayb dad badan oo ka yimid muxuu ahaa dowladda Soomaalida halkaas waa shir loogu qabtay weyn meesha la yiraahdo Said Ali Muslim Club boqolaal kumanaan qof ka soo qayb gashay anagu fariinta gudbinayna waxay ay ka tashiga shucuubta inay tahay muqaddas in la xurmeeyo laga maarmaan tahay oo dhammaan qowmiyadaha ku nool geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia ku nool qolo walba inay ismaamulkeeda haysato la is xurmeeyo haddii wax naga dhaxay u jirana waxa la si cadaalad loo qaybsado
marka inay taa kuwa yani sidii loo xoojin lahaa ismaamulada deegaanada inay xoogeystaan mooga waliba lasii awoodoo lasii korimoga inaan la khafiifin waxaa kaloo aan ka hadalnay muhiimadda ay leedahay in doorasho xora Ethiopia ka dhacdo oo cadaalad u dhacdo oo madax bannaan oo adduunkuna kasoo qayb galo oo ayna dhicin dhaqankii hore qolo kale in wax ku shubato taa inay muhiim u tahay nabadgelyada geeska Afrika guud ahaan gaar ahaan Ethiopia waxaan kaloo ka hadalnay isku xirka dhaqaale geeska Afrika inuu loo baahan yahay laakiin isku xirka waa inuu noqdo mid ku dhisan cadaalad qolo walba ay ka faa'iideyso qolo gooni ay ku danaysan inta kale ay ka fadhido ama Soomaali ha noqoto ama Oromo ha noqoto ama Amhara ha noqoto ama Ethiopia ama Soomaaliya ama Kenya ama Eritrea ama Djibouti qolo walbaba inay noqoto fair exchange yani waxa la iswadaarsanayay inuu si cadaalad ku dhisan yahay qolo walba ka faa'iideyso khayraadka muxuu ahaa qolo walba khayraadkeeda ay xaq u leedahay inay maamulato waliyaha kalena wixii markaa la iska siinay la garab faa'iideysanayna wax laga heshiiyo noqdo waxaa kaloo aan baaqayno ahaa in nabaddu ay muhiim u tahay geeska Afrika in nabadda la xoojiyo qolo walba shacab iyo dawlado iyo ururo siyaasi ah iyo waxgarad iyo odayaal iyo community-ga muxuu mas'uuliyiinta diinta kulligood in la xoojiyo nabadda iyo asgabarta shucuubta oo laga baxo xilliyadii maaragtay muxuu ahaa sardanka iyo cadaawadda la abuurayay taas message-kan dadka u sheegnay kaas ahaa waana u mahadnaqay dowladda Kenya kaalintii ka qaadatay nabadda ka dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida heshiisiintii dowladda Ethiopia iyo ONLF oo muddada socotay sidoo kale waana u mahadnaqay dowladda Eritrea oo ayadana qaybtii u dambeysay guushii u dambeysay qaadatay oo casmare heshiiskaas ku dhalisay aan maanta nabadda loogu noolaanayo dhulka Soomaalida iyo guud ahaan Ethiopia saad la socotaan Ethiopia khaasatan deegaanka Soomaalida wuxuu marayaa maanta waddo isgoys ah doorashooyinka soo socda waxay u noqon doonaan imtixaankii inay nabad ka dhalato deegaankaasi inuu burburo guud ahaan Ethiopia ayay u tahay imtixaankaas oo ah haddii doorasho xora oo dimuqraadi dalkaasi ka dhacdo oo dadku ay dhiibtaan codkooda si xor ah cid rabtaan ay doortaanna rajo waxaa jirta nabaddu inay waarayso haddii sida caadada ahaan jirtay qolo ay xoog ku muquuniso shacabkana inuu yani ay khilaafkii soo Ethiopia boqolkii sano xabaduhu ka dhacaysay laga bilaabo ilaa waqooyiga saxadka Suudaan ilaa Soomaaliya inuu sii xoogeysan doono oo dhibku sii badan doono markaan ugu baaqayna dowladda federaalka ah xisbiyada siyaasiga ah muxuu ahaa waxgaradka qowmiyaduhu in lagu dadaalo in la abuuro jawi dimuqraadi ah oo doorasho xor ay ku dhici karto oo isafgarad iyo abuuri kara bini aadamku inay si siman oo xorad wada noolaado taasaa keeni karta marka in la oran doono Ethiopia xaggee u dhici doontaa meesha aaday doonto shacabka Soomaalida waxay diyaar u yihiin inay doorasho ka qayb galaan inay cidda doortaan in aayahooda ay gacanta ku haystaan taas baan keeni doonta nabad waatay u dhinteen aabayaashan awooyadan kumanaan naftooriyaal oo aasan naftooriyaasha aan la fikiraya ma kuwii WSF oo aasan kuwii jeeshkii Nasrullah oo aasan kuwii waxa uu aasan muxuu ahaa xisbi Nasrullah kuwii ka horeeyay ee dooxatooyinka lagu waday ee weligood dagaalamayay ilaa xalligii meel dhulkeena u yimid marka ciyaar kuma iman inaan ismaamulno xorriyad baan doonaynay oo weyn bal inta laga gaarayo ismaamulkeen in la fargelay diyaar uma nihin waanu siyaasiyan iyo aqoon iyo cilmiba waanu u difaacaynaa sidii ummadda ayada gacanta uga haysan lahayd oo aan gobernatoriyaal loo soo magacaabin taa waa midaas weeyaan xagga dhaqaalaha waan ka hadalnay xadad beenaad ba reer Yurub iyo gumeysiyadii waagi hore dhulka yimid ay dhex dhigeen dadka Afrikaanka ah anna waxaan aaminsanay macnada been inay sameeyeen dadka Afrikaanku waa inay gacmaha isqabsadaan noloshooda abuurtaan xadadkan iyo baasboorradan iyo qashka lala orday la iska tuuro oo dhammaan Afrika laga bilaabo Muqdisho ilaa Lagos qofka Afrikaanka uusan baasboor u baahnayn xadna uusan xirayn ganacsigu furmo dhaqaalaha la iswadaarsado sida kaliya Afrika ku heshin kartaa taas weey hadii laakiin xadadka beenaadka qiimo loo yeelo waa la saysanaya waayo doonisa shucuubta kuma iman khadad rag dariyoodan habeenaysa umar mariyeen bahay marka waxaan anagu soo jeedinaynaa sidaan uga gudbi karno khilaafaadka iyo saysashada iyo gumeysiyada jira iyo kuwii hore u jiri jirayba dadka Afrikaanku in si xor ah la isugu furo oo ganacsigu isdhex maro oo gacanta la isqabsado laakiin waa inay noqoto mid cadaalad ah qolo gooni inay ka faa'iideen qolada kale gaajaysan tahay haddii economic integration la sheegayo geeska Afrika waa inuu noqdo qoomiyad walba tan ugu yar ee ugu aqoon yar ee ugu dhaqaale yar iyo ta ugu badan ee ugu aqoon badan ee dowladnimo soo haysatay waa inay party noqdaan oo sinmaan haddii kale waxa weeye waxa la oran maayo yani
isku dhafni ganacsi iyo muxuu ahaa horumar dhaqaala la gaaraya taas anagu waan aaminsanahay laakiin waa inay noqoto xaq waa in dadka u sinaadaan waana inay si cad oo ay u muuqato ugu dambeyn annaga dowlad deegaanka soomaalida isbeddel weyn baa ka dhacay nabadgelya ka dilaacday dadkeena colaad badan baa la dhigay waxaan ugu baaqaynaa in la diyaariyo la bilaabo barnaamijkii dib u heshiisiinta dadkii la isugu caloolfiyoobeyn lahaa laba walaalaa isdishay waa la isqowracay annagu ma aaminsanin aarsi iyo hadda inaan bilowno in laba walaalaa midna libolis bu ahaa midna olf askarteedu ahay kee la qowracay kee la dayn ma garanayno marka waxaan ku baaqaynaa in barnaamij adag oo ay ka qaybsho dowlad deegaanka xisbiyada siyaasiga ka qayb galaan odayada culamaa diinka haweenka dhalinyarada in la bilaabo oo dadkii sidii colaadii dadkan la dhexdhigay ay ku baabi'in lahayd dhulkan xukunka la isku haysta loo joojin lahaa muxuu ahaa taa iyada waxaa wey barnaamijka ugu muhiimsan oo hadda aan bilaabi doono waan usoo jeedinaynaa dowlad federaal heer federaal iyo heer muxuu ahaa deegaanba in dealing with the past waxaa ingiriiska lagu yiraahdo dalkeena laga bilaabo waxaa kaloo soo jeedinaynaa dadkeena oo hadda waa inay u dhaqaaqaan dhulkooda si ay ugu noqon lahayn dadkeena ku nool dibadda dalkeena wuxuu u baahan yahay maalgelin buu u baahan yahay aqoon buu u baahan yahay dhismo u baahan yahay inay kusoo noqdaan lacagtooda keenaan deegaanadooda dhisaan horumariyaan dowlad dhexe iyo adduunka wax ka timaada laiskuma hadla ay shucuubta ayaga dhulkooda dhista dhulkeena inaan dhisanaan ugu baaqaynaa sidoo kale ganacsatada degan soomaaliyeed kenya degan hataa kenyaanka hataa shucuubta kale oo geeska africa dhulka soomaalidu waa dhul baaba'ay oo aan dhisnayn waan soo dhaweynaynaa in ganacsiga uu soo galo oo investment lagu sameeyo investors from Kenya from Sudan from Djibouti from Somalia from Eritrea to come to the Somali region waan ku baaqaynaa waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay kaalaya suuqa xorta waan furaynaa waxaan rajeynaa dowlad deegaankuna inay fududeyso sidoo kale qaxootigeena jooga dalka Kenya muddo badan buu joogay ku mahadsan dowladda Kenya si usoo dhaweysay aad baan ugu mahadinaynaa waqtigii la celin lahaa inuu joogaan aaminsanahay kuwa doonaya inay halka degaan oo meeshooda joogaan dowladda Kenya waxaan rajeynaa inay ogolaato inay adduunkaba hadday muddo qaxooti meel deganaado integration baa loo sameeyaa inta diyaarku inay soo noqotana waxaan maqlaynaa in hadda barnaamijyo loo diyaaray ku noqonayaan waxaan doonaynaa barnaamijyada inay noqdaan dadku muddo badan dalkooda kasoo maqnaayeen xoolo ma haystaan in loo diyaariyo barnaamijyo macquula dhulkii degi lahayn dowlad deegaanku ay u diyaariso gacan in la siiyo muddada transitionka ay ka baxayaan qaxootinimada intay dhulka kala qabsanayaan shacabkana waxaa leenahay dadkiina soo dhaweeye dadkeena waa idinka maqnaa weeye in la kaalmeeyo dhul la siiyo la soo dhaweeyo taasna waan ugu baaqaynaa qaxooti